waa waajib waxyaalaha aan ka hadlin waxay tahay lacagaha kale la sheegayo qofka yarada iyo waxaan ummadan Soomaalida maanta ay ku daadiyeen dhaqamada ay soo dhaxgeliyeen ay ka badbadiyeen wax laga hadlo waa intaas iyo qabiil gabar waxaa jirta oo nin wadaasan wadaad bay helaysaa oo mataqaana wanaag Soomaali ah waxaa lagu xirayaa kaasoo ma dhibaan ma leeyahay kaasoo gaboobi ma leeyahay ama waa saas way isma guursano aniga ma arkin ayada quraan sheegayso gabooya la guursanin ama ma dhibaan la guursanin ma arkin weligii ma arkin xadiisna sheegayso ma arkin waxaan leeyahay culimada hataa inay kaalin weyn ka qaataan baa loo baahan arintaas inay ka wacyi geliyaan welina culimada inay bixiyaan action ay bixiyaan actionka waxaa waaye for example mithaal inay bixiyaan sheekh action bixiyo in la arko oo isaga arintii ku dhaqaaqo bulshada ugu dayo meena oo kale sheekha qoladii la duraayo ama la yasaayo sheekh ugu caalinsan Soomaaliga ah inuu tago gabar gabooyo guursado mataqaana oo la aqal galo oo dareensiyo muslimiinta waxa ay sheegaysan waxba ka jirin gabooya inay kamid tahay gabdhaha muslimiinta ama sheekh caana uu soo baxo gabadha ma dhiwaanta til riixi family la riixayo la leeyahay ma dhiwaan baatay la si riixay in la soo qaado sheekh caana Soomaaliya guursado oo la tuso waxana ay sheegaystaan iyo quraafaadka ku hadlaysan waxba kama jiraan laakiin culimada muxaadarooyinku way dhigaan way ka hadlaan laakiin actionka laga laay in actionka ay bixiyaan bal raba sheekh caana uu soo baxo ficilka la imaadaan mataqaana sheekh waqooyi kiimid Hargeysa kiimid ina Kismaayo imaado gabar Jubbaland oo guursado loo baahan in la arko loo guuriyo sheekh la arko ama sheekh Nairobi ka tago oo tago mataqaana koonfurta tago baydhabo tago gabar ka soo guursado oo keensado loo baahan dadka inuu tuso laakiin Soomaalida waxa waaye culimada iyo dhaqanka hoogeer waa isku dhagan waxaan u baahan yahay culimada loo baahan yahay ina wixii ku hadlaan ina ficilka la imaadaan daraad oo kale waxaan arkayo afan ka ku jira daraad waxaan arkayo klinika shanaad Ethiopia madaxweynaha Axmed Cabdi Qalaasiye wuxuu sameeyay 10 gabdho iyo 30 wiil iyo 30 gabdhood kala duwan ba uu sameeyay aqal buu sameeyay aroos buu sameeyay wadareed buu sameeyay oo guriyaalna uu siiyay oo hanti mataqaana shacabka ku guuriyay mataqaana muslimiinta kuwa isku baahan intii zina ay sameeyeen lahaay horta khayr buu sameeyay waa fiican laakiin madaxweynaha hal action ba ka maqan asnaftigiis waxa laga mataqaana hal gabar oo gabooyo loo guursado asnaftigiis arab inaa mataqaano 31 inay ka dhigaano asnaftigiis inuu galo ay ku habooneed aad ma san tahay guntii gabgoodii barnaamijkan soo gaarnay fariintaada ugu dambeysad oo dareyso guud ahaanba dhalinyarada Soomaaliyeed ee barnaamijka daawanaya waxaan leeyahay dhalinyarada muslimiinta wiilis qas Soomaalida waxaan leeyahay walaalayaal karaamaan leena ilaahay horto aan u mahadnaqno ilaahay wuxuu naga dhigay dad muslimiin buu naga dhigay qofka marka muslim laga dhigin waa la jecleystay ilaahay baa jecleystay qof muslim inuu ka dhigo ilaahay wuu jeclaan karaa qof inuu gaaleeyo qof inuu muslim ka dhigo haddii ilaahay uu ku hanuuniyay muslim ka dhigay ilaahay u mahadnaq wixii ilaahay uu ku faray cibaadada la imaado wax macaasiyad ku dhex jirta ilaahay uu toobadkeen toobada ilaahay uu aqbalaya way furanta toobada qof maanta diidi kara waraa khamri cab ahaan jirtay ma toobadkii masaajid ma soo dhex galayso qof dhex kale ma jiro ilaahay aan ka heen ilaahay waxa nusuusta waxa ku cad ilaahay marka adoonkiisa uu soo laabto macaasida ka soo laabto ilaahay aad buu u farxaa sida uu farxay oo kale qof geelkiisa ka lumay markuu helo sida uu farxay oo kale ilaahay aad buu ka sii daran yahay marka waxaan leeyahay aan u soo laabano xagga ilaahay subhanahu wa ta'ala wadadii saxsan aan u soo laabano aan ku xirnaano masaajidyaasha iyo xalaqaadka laga aqriyo masaajid kasta aan ku xirnaano mid labaad social media-na wuxuu noqday maanta meesha lagu bixiyo fataawada umada lagu dilo fataawada umada lagu fasahaadiyo waxaan leenahay Facebook hadaa u isticmaalayso diin inaad ku barato oo isticmaal hadaad qalbi kugu jirto Facebook inaad u isticmaasho fuxshi iyo falxumo iyo dad aad ku caydana waxaan leeyahay ilaahay ka soo midoobay subhanahu wa ta'ala chaniska aad haysataan dhalinyarnimada aad haysataan caafimaad kugu jiro waa xikmad weyn waa chanis aan ka faa'iideysano leeyahay
وهاجر هذا ما هتصنتهاي guud ahaanba intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal barnaamijka codka barbaarta oo aad si toos ah kala socoteen fogaal araga STN barnaamijka toddobaadkan waxaynu uga hadlaynay fawaaxishta iyo sida ay uga fogaan karaan dhalinyarada iyadoona barnaamijka uu marti igu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Moonya oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee daayarta ee ku nool magaalada Nairobi barnaamijka waan filayaa in dad badan ay markaasi aad uga bogteen waxaana soo saaray halkan idin kala socodsiinayay anigoo ah Maslax Abukar Xaaji dhankay muuqdowida saaxiibkay Andiva tani intaanu ku kulmi doono barnaamijkan kan xiga waxaan idin ka tageynaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba horumar wanaagsan insha Allah